xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxay yeelanaysaa wajiyo cusub maalmaha asbuucyada iyo bilaha soo aadan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xoojinaysa dhismaha awoodda hakin kara tillaabooyinka madaxweyne Xasan Sheekh oo aan la dhacsaneyn dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. inkastoo Xasan Sheekh uu sameeyay wax walba oo ku qancin karo dalka yar ee Imaaraadka, haddana taasi uma dhalin inay Imaaraadka aaminaan oo ay culayska siyaasiga ay ka dulqaadaan dalkana ay ka daayaan faragelinta joogtada ah. weli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma qaadan go'aan buuxa oo ah inuu iska difaaco qorshaha lagu dhaafinayo kursiga. taasi beddelkeeda wuxuu u dhow yahay inuu sameeyo tillaabooyin kale oo uu ku qancinayo dowladda Imaaraadka oo ay ka mid tahay inuu u tago ama inuu ka fogaado siyaasiyiinta ay necab yihiin. dhinaca Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo hogaaminaya siyaasiyiinta Soomaalida ah ee aadka ugu dhow dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa ilaaqoodkooda xumaa tani markay dhamaatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya ee 2022. taasi oo Siciid Dani aaminsan yahay inuu Axmed Madoobe uusan u hagar bixin. laakiin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa bilowday xiriir taleefan oo u dhaxeeya labada nin. xoguhu qaar waxay sheegayaan in dowladda Imaaraadka ay shaqadaasi ay qabatay, haddana waxaa loo gudbayaa in labada nin toos ay wada fadhiistaan, wixii hore si buuxda isaga wada cafiyaan, dagaalka Xasan Sheekhna ay isku aragti ka noqdaan. midda saddexaad ee labada nin ee la isugu raadinayo waa in mar kale Siciid Cabdullaahi Dani loo dhiso doorashada soo aadan ee Soomaaliya, taasi u baahan doonto dood iyo baarlamaantii hore ka xoog badan. Axmed Madoobe iyo Siciid Dani waxay haystaan ballamo ah inay tagaan Abu Dhabi oo halkaas ay isku arkaan. sidoo kale waxaa macquul ah inay isku arkaan Nairobi. dhinaca kale mucaaradka ka soo jeeda magaalada Muqdisho oo iyagana dhawaan qaarkood heleen mashruuc dhaqaale oo Xasan Sheekh Maxamuud ka dhan ah ayaa la qorsheynayaa inay Muqdisho isugu tagaan dabayaaqada asbuuca soo socda. qorshu wuxuu markii hore ahaa in la is arko Sabtida soo socota, laakiin ilo muhiim ah ayaa inoo xaqiijiyay in dib loo dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dartiis, kaasi oo muujiyay xoogaa cagajiid ah. lama hubo inuu Farmaajo toos u diidan yahay iyo inuu qayb ka noqdo isbahaysiga mucaaradka iyo inuu rabo inuu wax ku goosto. iyadoo ay mucaaradka ay wadaan dhaqdhaqaaqyadaas ayaana dhinaca kale waxaa muuqan shaqo siyaasadeed oo rasmi ah ee u socota madaxweyne Xasan Sheekh. hadaba sidee u aragtaa adiga?